tartamadu way kala sareeyaan taariikhuhuna waa maguuraan meel taala tartanka zeerasiida ee degmada Balcad ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay Dr. Ayub Stadium. Tartanka kan oo ah markii ugu horeysay degmada Balcad laga qabto ayaa soo xaadiray Jubilees iyo sidoo kale City Boys. kulan aad u xiiso badan ayaana ka dhacay Dr. Ayub Stadium. bilowga ciyaartaba waxa gool wadna qabad ah looga shubay kooxda Jubilees oo City Boys ayaa gool daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta la timid atore madinto ee uu suuxa ayaana ka dhacday oo gool barbara ay la timid Jubilees. laadirku bilowga filimku madinto ee waa loo dibdhigaa Jubileesna shalay waxa ay sameysay comeback waaliya oo gool kale ayay u saarisay City Boys oo u muuqatay bilowga ciyaarto in ay markaasi hoggaanka ciidaha ay la wareegtay balse daqiiqadooyin kooban kadib waxa looga la wareegay hoggaankii oo 2 gool iyo gool ay ciyaarto noqotay. waxay ciyaarto socod waxa gool saddexaad la timid Jubilees oo shalay wacdaro aad u weyn ka muujisay garoonka Dr. Ayub Stadium. haddii uu jabiga iga wareersanaa ina jawaymaad u mooday ayna Jubilees ku jeesisay garna sideedaba haddii Google loo fadhiisto mid unba ku guuleysta. kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa soo buux dhaafiyay taageero aad u fara badan waxaana sidoo kale halkaas yimid mas'uuliyiin aad ugu riyaaqayay habka ay wax u socdeen. ciyaarta ayaana ku soo idlaatay 3 gool iyo gool ay ku awood sheegatay Jubilees. Jubilees ayaana sidaas ku noqotay championka series sida degmada Balcad 2024 kaas oo markii ugu horeysay laga qabtay degmada Balcad. Jubilees iyo sidoo kale City Boys ayaana sidaas ugu soo gudbay Serbida maadaama 2 koox looga baahnaa in ay ka gudubto Serbida. tartanka Serbida iyo sidoo kale Zereeda ayaana dhawaan la rajeynaya inuu ka qabsoomo garoonkan weyn ee Dr. Ayub Stadium. waa anigoo ah saaxiibkii Jeelani Cali Mucu Kamara oo idin dhahaya Soomaali Sports Hormar.